gudida qandaraasada qaranka Soomaaliland ayaa ku wareejiyay gudoomiyaha gobolka Sanaag mudane Maxamed Axmed Caali Timbaro gaari uu madaxweynaha Soomaaliland hore uga soo ballan qaaday maamulka jaamacadda Ceerigaabo in xukuumaddiisu ay siin doonto munaasabad kooban oo ka dhacday barxadda gudida qandaraasada xarunta gudida qandaraasada qaranka Soomaaliland ee magaalada Hargeysa oo goobjoog ka ah wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland mudane Boos Mire Maxamed ayaa waxa ugu horeynba ka hadlay gudoomiyaha gudida qandaraasada Nuux Maxamed Xuseen waxaanu gudoomiyuhu ku dheeraaday ahmiyadda uu gaadhigan leeyahay sidoo kalena waxa uu sheegay gudoomiyuhu inay fulinayeen amarkii madaxweynaha Soomaaliland uu ku bixiyay in sida ugu dhaqsiyaha badan gaari loo siiyo jaamacadda Ceerigaabo mudane Maxamed Axmed Caali Timbaro gudoomiyaha gobolka Sanaag oo Bulsha TV isaguna la hadlay ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland uga mahad celiyay gaarigaasi la gudoonsiyay jaamacadda Ceerigaabo ee gobolkaasi Sanaag waxaan la wareegnay gaarigii ballanqaadkii uu madaxweynuhu ballan qaaday jaamacadda inuu gaari u iibinayo waa naga soo la soo wareegno waa haysanaa aad baan ugu mahadinaynaa madaxweynaha fulinta uu fuliyay ballanqaadadayadii intoodii badnayd inta kalena insha Allah si dhaqso ah ugu sugaynaa waxaan u mahadnaqaynaa gudida qandaraasyada oo runtii iyana noo fududeysay hawlaha maadaama aanu meel fog ka nimi laamba bixisay iyagana aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan leeyahay reer Sanaagna ballami intii badin intii kalena waynu insha Allah sugaynaa samirkana aan badino hantida leeyna siiyena aan ku faraadagno aan dhaqaaleysano mudane Boos Mire Maxamed Nuux wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha Soomaaliland oo ugu dambeyn halkaas ka hadlay ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland fuliyay ballanqaadyadii kala duwanaa ee ku soo ballan qaaday magaalada Ceerigaabo baabuurkana uu ahaa kii ugu dambeeyay badiba ballanqaadyadaasi mudane Boos Mire Maxamed ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland uu muhiimad gaar ah siinayo gobolada bariga Soomaaliland waxaan hadda taagnahay gaarigii gudoomiyaha jaamacadda Ceerigaabo uu madaxweynuhu ugu soo ballan qaaday su'aalka Ceerigaabo oo in fact ballanqaadka ugu dambeeyay halka jaamacadda ka sameeyay inta kale kulli gobolka maalintii ku amray inay sameeyaan gaarigaas ugu dambeeyay aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu xaqabtiray baahidii waxbarasho ee haysatay gudoomiyaha gobolka Sanaag waana ballanqaadkiisii waxaan filayaa ballanqaadadii uu sameeyay waxbarashada iyo jaamacaddu ay sida ku gabagaboobeen aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha Luqmaan Maxamed Farax Bulsha TV Hargeysa.